tusaale ahaan haddii midkiina uu haysto 86,400 oo dollar مثلا tusaale ahaan haddii aan aniga haysto oo kale 86,400 oo dollar kadibna aan iska socdo oo mid ka mid ah tuug maalin ii yimaado oo $100 iga qaato marka macquul ma tahay inaan 86,400 oo dollar aan ka soo tago aan tuugaasi aan dacweeyo maxkamad aan tago kharash aan bixiyo aan isku mashquuliyo sida aan ku soo celin lahaa $100 anigoo haysto 86,400 oo dollar ee boorsadayda ku jirto macquul ma tahay mantiqa aqliga qofka bini'aadamka fiyo aqligiisa muxuu is oranayaa $100 ka tag marka nolosha anaka aan noolnahay maalintii waxay ka kooban tahay 86,400 oo second ama mirir wax loo yaqaan dadka qaar waxaad arkaysaa mowqif ama dhib yar oo qabsaday daqiiqad ka mid ah 86,400 oo second ka mid ah ayaa mowqif yar dhib yar uu soo gaaray waxay u baabi'inayaan ee uga tagayaan waxa waaye noloshoodii oo dhan maalintii intii oo dhan oo harsanayd waqtigii kale oo dhan oo u dhinnaa oo badnaa oo dhan waxay ku noolaanayaan walwal iyo cabsi iyo walbahaar iyo fikir yaa akhi mawaaqifta xunxun iyo waxyaalaha qofka saameeya dhulkaada ku duug kabtaada hoostiisa ku duug ku raaxayso waqtigaada kale ku haray marnaba ha u ciishoonin dhib ku soo maray ka tagay noloshaada ku saameeyay noloshaada Soomaali maxaa yeelay noloshiyo koobanaba